aniga waxa sheegay saxbiga ma gelin mar kale ayaan kugu soo celinaya dantaadu waxay ku jirtaa in isku kii dhiibta aniga haddii kale waxa wata sultan shacabka ku qasbayso carruurta adiga ku dhalan doonta mustaqbalkana isticmaali doonaan shaqfir dadka cuntawriyaha nucna aniga ma cunana daawadaas aniga dadkana xataa ma cunaya ee dadka kale ay ku qasbaan wasiir kale uu qasbaa wasiir goboleed kale uu qasbaa wariya marka waxa leedahay xal ayaa laga gaaray oo isku dhamaanaysa adinka waxaad haleynaysaan kadibna xal laga gaaraa soomahan aniga fiidoo idinka duuba social media ayaan soo dhigay shacabka dhan way arkeen kalsoonidii alaabtiin ku qabeen dib ayay ugu laabanayaan marka ugu horeysa ma video anaga nagu saabsan qadka la soo dhigayo dadka dhanna way daawanayaan kadibna waa la iska gudbinayaa cid soo tixraacaysana ma lahan aniga ganacsigayga dad xumaan ka raadayso warshadeeda inaad xirto midaas dhibaato ma lahan shirkad kaleeta ayaan furanayaa isla dabaqii ayaan ka furayaa loogadana waa iska beddelayaa baakadana waa beddelayaa kalarkana waa beddelayaa si kale gooni ahana waxaad ogaataa aniga inaan xayeysiinayo dadkana waxaan xaqiijinaya alaabteeda inay mar kale gataan isla alaabta marka hore aad ku tilmaamtay inay baraxan tahay dadka dhanna waxaad ogaataa inay gadanayaan boor weyn waan dhegsanaynaa annaga dadkana waxaan u sheegaynaa alaabteenna dabiici in ay tahay oo wax qasan aysan ku jirin inta aniga noolaa midaas kuma suurtagelayso dadka rabitaankooda intuuba shaqaynaayo adiga hadalkaaga ma shaqaynaayo daniel midaas waa ku qaldan tihiin dadka shacabka masaakiinta ayaa soo siinaysiin marka hore waa inaad qiratiin dembiilyarna tihiin dembigeed ka hadlaysaan adiga war annaga waxaan aragnay dooli in la kariyo lafiisana beeraha lagu soo daadiyey dadkaad dirtaan jiraanna waxaad ogaataa doorooyin 65 nooc loo kariyo inay cunaan jikin tika jikin beerkale adiga waa maqashaan malayna dadka markay xaflad jirto waxay cuni jireen mataqaanaa idli iyo doosaa maantana waxay cunayaan mataqaanaa cunno aad iyo aad u macaan badan markay soo kacaan dadka mishaarada ku af bilaabi jiray cunnaday cunaa hadirtaa mataqaanaana cunno enerjigeeda aad iyo aad oo u sarreeyo caanahayga ayayna ku darsadaan caanahayga aniga dhowr nooc ayaan ka soo dhigaa midaas ma ogsoon tahayna adiga annaga hadda heer ayaan gaarnay marka hore dadka lacagta leh ayaa cabbi jiray caanaheenna xitaa faqiirinta hadda way cabaan ma fahantay waxaana la gadaa 10 rubis waddankeenana waxaa ku nool 1.32 bilyan oo dad ah marka dadkaas waa dadkeena marka seekan ku siiyana intaasoo qafada dii aan dhahno sidee ku gaarayaan illa barxa waa qasab duqaad wax tayo leh inta cun lahayd oo 80 sano aad gaar lahayd waxa ka wanaagsan ma taqaana wax barxanana cunto 40 sano iskaga dhim adigoo faraxsan marka adiga dhib ku soo maxay aniga shacabka ayaan u danaynayaa runtan shacabku waa tusaya cid iga celin kartana midaas ma jirto hadda haddii aan ku fasaxno 100 qof ayaa ku soo raacayso berri haddaan ku fasaxno 200 ayaa ku soo raacayso berri dambe 1,000 ayaa ku soo raacayso annaga midaas uma adkaysan karno kuwa baanka gadaya xataa bannaanka ay kugu sugayaan dhimashadaada ayay sugi laayihiin ninka bannaanka noo soo bixi ka waya ka siinayna waan dilaynaa ma dhaafeen noo soo bixi ma maqashana dadkaas codkooda maanta adiga gacanteenna ayaad ku dhimanaysaa waqti dhumiskaa maxabay lakshmi gurigan mas-uuliyaddiisa adiga ayaan dusha kaa saaray aniga ninkan waalidkaan u ahay agtayda wuu ka dhintay waxaan rabaa markuu guriga imaanaya sida booyaasoo kale inuugu noolaado raashinoo keliya ayuu igu leeyahay aniga wax xaq oo gurigan ku leeyahay ma laha rixaaqiisaa hore u qaatay waa la kasbayha ka war mugana usaga kasbeeyo qof asaga la socdo iskuma soo dayayaan ku dhahay siyaasadda inuu soo galo mina ku soo dhiiradana waxaan kuu sheegaa inya qabtaan jarjar ahaan ku dhahay hilbihiisa inya jarjaran goobeeyan suuqa ka yimina waa mahadsantiin maadaama familkeyga dhan aad sidaan u qiimaynaysaan waa idinkaga mahad celinayaa middeeda kaleeta siyaasaddan aniga wax kale uguma aanan soo biirin ee waxaan ugu soo biiray adinka inaan wax idinkugu qabto maana loo baahnayn adinka shaqooyinkiin inaad ka soo tagtaan aniga ayaa lugaygu idinkugu imaan lahaa alla dilaa dhinta saaxiib cid bini aadan oo wax dili karta ma laha anigana waxaan u taaganaha xuquuqdiin inaan idiin soo dhiciyo oo aan xaq idinka gelin adinka haddana diyaar ayaan u ahay dawladdii dhan wasiiradii oo dhan saraakiishii oo dhan dadkii sharafta lahaa ee dadweynaha cisaya ayaa magaalada ku dheelaaya dalkooda hooy ku dheelaaya masaakiintana dhiiggooda cabaya beddelkay biyi siin lahaayeen garabna siin lahaayeen dadkan waa burcadda magaalada waddankayna u dhasheen ayaa la leeyahay waddanka uma dhalan meelay ka yimaadeen lama yaqaano halkanna waxay u yimaadeen masaakiinta dhiiggooda inay cabaan sida biyahoo kale waa fiican tahay qaylana waa ay ku dishay tabac ilaa iyo xarafka ta'da ka wareerta inay maanta oo dhan nugula tabac lahayd laakiin wax ku suurtagelaya male adiga waa iska qaylisay intaad qaylin kartid feerahana waad iska dillaacisay hadda maxaad ka faa'iidaysaa aniga dadkoo dhan ayaa i taageersan
dembi kastoo aad igu soo ogto ma kuu suurtagelaayo lagu aamini maayo haa shacab weyne oo dhan waxay sugayaan waa aniga hadalkayga ayaa ku soconaya biyo camal ayaan u siinayaa oon hadduu qabto hadalkayga ayay ku oon baxayaan dabbaal waa iska cabaadaysa maanta dhan maxaad isaga qaylinaysay maxaad iila tashan weysa aniga muufo ayaad maraq la'aan cunaysay dadkiina soo doortay cod ayayna siinayaan kadib ayaan meeshaan rabna gaaraynaa haddii aadan sidaas samaynin waxay noqonaysaa arrimahaadoo dhan hal bacaad ku lis marka adiga dheeshaasoo dhanba ma soo marin nin masaakiin oo jiibjaab ayaad iska aad waxaad rabtaa inaad annaga nala tartanto taasina mid kuu suuragelaysa maahayn waa inaad isdejisaa caqlina dheeshaa laakiin caqliga mar hore ayuu ku ahaa hadda meel dhexe ayaad ku hartay inta maxaa soo doontay adiga soo idaacadaha iyo joornaalada ma akhrisanin miyaa inaan aniga kaa wood badiyey adiga cayaar ayaad waddaa laakiin annaga waxeenna sharci waaye adiga meeshaan waxba kuuma yaallo waad inaad iskaga dhaqaajisaa orod naga hortag waa kana fidno dhan ninkaana ka dambeeye ninkaan ayaa ka dambeeye fidnadaasoo dhan waa dilaa waa burcad ninka dadka laayay oo dhiigga iyo dhacaanka ummadda qaba waa ninkaan aad u jeedaan dad badan ayuu qabyaa aniguna khatar walba waddada loo mara ayaan aqaanaa waan ku imaanayaa waryaa janguura wejigaaga maanta waxaa ka muuqdo calaamad gaduudan waxaan u malaynayaa askar badan inaad soo dhammaysay waa runta kabsaska sida masasku ay u necbiyeen ayaan anigana askarta u necbahay waxaan kuu sheegayaa maalin waxaa dhici doonta dowladda hindiya askar u shaqayda laga wey doono waa in aad qaadataa hubkan faraha badanna iyo qoryahan oo aad baxdid oo magaalada dhan soo baabi'isaa anigu waxaan doonayaa dowladda hadda ka dhisan in aan baabi'iyo oo aan ka dhiso dowlad aniga aan u taliyo annaga dhulkeena hooyo si dheedheele kuma baaba'ayo waayo dhulkeena hooyo dhiig iyo dhacaan baa ku soo baxay canaasiirta isku dayaysa inay dhulkeena hooyo baabi'ido gacan bir ah ayaan ku qaban doonnaa annaga middaasna waa igu balan aniga sidaydaba tan okiyaala gashta zaid cawir waay fiir wax ma luxuu mas'uuliyad waay iga takor yaa iga henne horay wax badan gabdho waa tuugana boo ku jecla way dheen laakiin markaan tan in aniga tuugi doono marayna waxaan ahay journaliste magaceyguna waa Siima waxaan rabaa inaan ogaado goorta la qabanayo burcadda oo wadankeena inay baabiyaan rabaan waa muddo dhow burcadda rabta inay gobolkeena baabi'ido waxaan qaban karnaa markay dawladda iyo shacabka gacanta isqabsadaan oo si wanaagsan looga hortago loona hujuumo burcadda doonaysa inay wadankeena hoos u dhigaan horta aniga waxaan iweydiiyaa shameen anay wasiir naqaa hore i gadaalna uu shaqeeyay shameen naqaa wasiir ii sheega baan tuugaya taleefanka waxaad iigu dhahday inaan kula kulmo ayaan rabaa kulankaaga ma waxaad iigu tusayday inaad tahay nin garbihiisa hub lagu ilaalinayo aniga sidayda afkayga hadal kama baxay holac ayaa ka baxa marka sidaa darteed meel kasta oo aan aadayo staff ayaa ila socdo waxaa kuu roon aniga inaad ila saaxiibtid waxaan kaa dhigayaa xabad markii la maqlo dhawaaqeeda dawladdoo dhan ay wada argagaxayso haddii aad isku daydid aniga inaad xiriir ila yeelatid xabadda aad sheegaysa xabad ka dhawaaq kulul ayaan anigu dhagahaaga ka yeersiinayaa adigu waxaad damacsan tahay shaarba libaax inaad ku ciyaartid aniga ima garanaysid anigu waxaan ahay maroodi markuu doonana geedaha jajabinaya markuu doonana geedka dhanba xididada u rujinaya oo gadaashiis ka tuuraya war adigu waxbaa isku matelin maroodi ee bani'aadnimada ku ekaaw ee waxaan kuu sheegaya aniga mar dambe kulan haddaad ila yeelatid aniga neefta ayaan kuuga celinayaa ogow saddex bil gudaheed 30 mar ayaan kula kulma adigana waxaad weydiinaysaa magacayga mar kastaba markii doorashada aan kugu ololay jiray magacayga waa xusuusneed ma ii sheegi kartaa hadda waxaad magacay ku ilmaantay aniga magacaaga waan xasuustaa ninkan haddaan magaciisa sheegnay madaxweyne camal ama ka dhignaba bulshadana waan ogahay inuu sumcadii sharaf ku leeyahay dembi maan leenaa markaanaka soo kulama hadlo warkayga bargoynin yaaqee markaan jabaygu ridin ii wad warka war ninkan aa u jeedid bombay ilaa kalkataa sida madaxweyne oo kale loo ciseeyaa
marka haddii aan magaciisa sheegna dambi maan leenaha marka annaga haddii aad gabar shukaansanaysid magaciisa haddii aad sheegto waa ku ogolaahay aan ku dhahay shilin ma lagaa qaadayaan ku dhaha lagu siinaa waxaa kaloo kuu soo haray isbitaal markii aad tegaysid haddii aad magaciisa sheegtid waa lagu fudayna holba horta nimankan kuma yaqaana waa iska joogaan meesha shaleemaha haddii bilashado tikid ma la goyn karaa waa maya aniga horta darta aanba ku galaaba shaleemada sababtoo ah cid ila hadasho ma lahaba aniga waxaaba ka sii daraba magaalada gudaheeda adigoo gaari wato oo jaam ah haddii taraafig ay ku qabtaa mataqaanaa magacaaga haddii la sheego waa lagu sii daynaa magacaada marka kor waaya nimankaa kuma yaqaana anaa ku aqaano see waa babuji midaa hilmaamay madaxweynenimo 5 daqiiqa kaaga dhiman annagu wasiirnimo ma waxaan kugu doorannay inaad askarta aad nagu soo dirtid oo har iyo habeenayna garahaan annagana har iyo habeenba bannaanka iyo qorraxda ayaan ku qaylinaynaa si carruurteenna iyo haweenkeenna ay baahid uga baxaan an waxaan ku hayaa shicib kacay shini waa ka daran yihiin shicibkaas marka waxaa la rabaa unuka inaan maaweelino laaluushna aan siino telefishinkana cawadi aan ugu dayna filmaa ay ku raaxaystaan dhammaan madaxdiina sharafta leh waad salaamantihiin annagu haddaan nahay madaxda dawladda ma aha inaan ka fikirno oo keliya horumarka dawladda waa inaynu ka fikirnaa xuquuqda bini aadamka idinkuna waa la socotaan waddankeena indiya inay ku nool yihiin masaakiin fara badan oo gaajo haysa marka annaga maxaa noogu gudboon inaan masaakiintaas baahida ka tirnaa mise horumarka dawladda keliya aan ka fikirnaa middaas ayaa idin weydiinaya waa hadashi hadalkaana laga rabaa aniba booskaan di joogi lahay sidii u hadashi ka darna u hadli lahay waa runtaa hadal aad dhehaysid anaga maahan danahayna oo keliya inaan ka fikirno waa inaan ka fikirnaa xuquuqda bini'aadanka masaakiintana waa inaan ka tirnaa baahida waddankeena kuma yaro warshado ray ahaan aniga waxaan qabaa dawladaha shisheeye inaan xiriir la yeelano xiriirkaas oo ah xiriir ganacsi anigana faa'iido ayay noo tahay aniga shir waxaan ku darsaday intaasoo hadal ah tiitiin haddii ratid khudiciidno inaa u adkaysataa haddii isku duro annagu waxaan qabaa inaan dawlada shisheeye wax gacansaar la yeelan mana qabano inaan gacansaar la yeelano dawlada shisheeye kahor waxaan gumaysan jiray ingiriis dhibaatada laga soo gaadhina waa la ogaa ani hadalkeysaan lesahay tiitinkii sheegay waan soo baxay ninkaanaasna duri labba waay dhammaan dadkuwaan walciwood waddankeena maalqabeeno badan waa ay joogaan kuwa maraakiibku socdo kuwa dahabka ganacsado kuwa warshaday leeyihiin marka lacagtooda haddii ay ganacsi ku sameeyaan waddanka ayuu faa'iido u yahay anigana faa'iido ayay noo tahay ganacsi gudaha oo keliya kuma saabsan dibaddana way ku saabsan tahay aniga waxaan ka hadlayaa oo keliya danta waddankeena hadalkaaga waa sax joodri runtii anaga haddaan xiriir la yeelano dawladaha shisheeye macnahayga xiriir ganacsi anagay faa'iido noo tahay dalkeena bay faa'iido u tahay masaakiintana baahida way ka tirimaysaa waddankoona lacag buu noqonayaa lacag wax la yidhaha ma jirtee waddan wuxuu isku bedelayaa olol wax la yidhaha faa'iido oo aan helayna haba yaraatee ma jirto dawladaha shisheeye wixii faa'iida iyaga qaadanaya dadkii dabaqyada saarnaa qaybta dhexe ku soo dhacayaan dadkii qaybta dhexe saarnaana dhulka ayay imanayaan dadkii buusaska deganaana laamiyada isfurayaan iyagoo baabaa salaamiga waan rabna inaan dawlad shisheeye aan ganacsi la yeelno barkay waran dhacayaan warnaga ams adigoo kale mahatma gandhi dhimashiis u sababa adigoo kale ayaa baahida waddanka u sababa aniga waxaan leenahay ganacsiga waddanka adigu ganacsi maxaa ka taqaanaa markaad leedahay dawlad shisheeye xiriir ganacsi ah lama yeelanayno anigu waxaan ka fikirayaa uwax waddanka iyo mustaqbalka waddanka waxay qurunka ah wali aniga hay waafagaado waxay qurunka ima caayi kartadaa quruna qarmuuneh adiga saricayda adigoo kale ima caayi kartadige aqoonlaan baa u kalaaba aniga meesha doontaa ila tagto kula tegaya waxaad tihiin cadowga dalkayga hadalkaygana si fiican oo dhegaysta intaan anigu magaaladan ku noolahay idinkoo burcda dalkayga hooyo inaad wax ka qaadaan lagama yaabo waa laysku baaba'aya mooye kumaando vijay miyaan iska qaban la'nahay aniguu hubkayga qabanayaa marna ciidamadeeda ayuu qabqabanayaa war aniga dadka uu dardaaranaya miyuu imoodaa kumaando vijay kaaleya aniga ima garanayo war aniga sunta jirkayga ku jirtaahi waa ay ka daran tahay tan maska oo kale kumaanta vijay u sheegay inaan ahay jahalka magaaladan ugu daran uguna xaasidnimo badan waa cunaa wax jijibinaya waana dhuuqaya kelabka waryahe xaggeed ku socotaa anigaad isoo xirtay markaasaad iska dhaqaaqaysaa kaalay mid taqaanaa aniga waryaa naasiho haa si fiican baan ku aqaanaa war dad badan oo masaakiina ayaad nolosha ku gubtay dad badan oo masaakiina ayaad ciidda ka hoos marisay ciiddaas aad ka hoos marisay isla ciiddaas ayaa dadka soo dhashay dadkaasna waa aniga adigoo kalena ayay baabiyaan
war aniga dadka ciidda ayaan ka hoos mariyaa laakiin adiga aanan niido waa tahay intaan ku qasto ayaan yaro ku dhuuqaya waan ku caabayaa waryaa idigays adigoo kale aniga ima booteeyo dadka neefta qaban faran ku dilaa inaysaa sida ay laf waayoo kale markaasaad aniga ii booteynaysaa anigoo military ah commandoska lagu dhaarta ayaan ahay haddii lagugu dhaarto waa laga dhaarahan ku yidhi aniga haddaad iga badbaado koofi madoobe ayaadan ka badbaadi doonin ma waadan ka shalaynaysaa waryaa maalin maalmaha ka mid a waxaan nii sheegaya hanguricnoole ma taqaanin biicawoole ma taqaanin ممثل وجسوية سريد محصر لو جسوية ما تقنين ماستر إن الله صوب بدوادي وي ماستر إن الله صوب بدوادي ضروري وي معني صعوي لما هو رهن حديك كل هنا كبع كل الوقتين dee mudan xagee baa ka raalina ulka nik qoolay camal baa sanduuq loo dilay xagee baa laga halkaa nik kumanda fijeena waxaa ballanaya inaan aniga lugayga hoostooda keeno markaas kadibna wuu ka shalaynayaa xabsiga dhexdiisa ayaa aniga dhilqa badan igu soo cunay asigana wuu marayaa kaasoo kale goha wiilkaaga mar horyaan dhahay aniga ammaan isii ciidankaygana nabadgeli dhowr jeer markaan ku celceli warka waa iga diidi laakiin warkiisa waxaan ka dhigi saan inaan yeelaan seefteeda amariyo war shaqaale xun darteeda miyaa wiilkayga aniga u dilaysaa ii sheeg adiga dadka ani ii joogaan shaqaale inin sharaf leh makala baxsana dhiiggooda miday ii yihiin haddii adigana warka aad badisid beer camal haddaan kuu shafo waayaan ku dhahay habartay xalaal mi igu dhalin muddo 2 maalmood gudahooda qoladii ku guulaysay dagaalkaas xilka boqortooynimada hal san ayadaa haynayso haddii qolada kale ee keento wax khallaasa ah ama arbushaad ay ku samayso qolada boqortooyada ah anaga ayaa talaabo sharci ka qaadayno taasaana lagu keeni karaa xal waara oo nabad ah shacabkan ay ku badbaadi karaan taas xal uma ah labadiina boqortooyo keliya ee waxay xal u tahay shacabka idinku hoos nool oo idin oo dhibaatada ku jira waa inaad shacabka u danaysaan dadkayga inay dadkaas dhibaato gaarsiinayaan aniga ayaa ballan qaadaya waa haddii ayaga laga helo laxbugta ku hirtisa taas ma danoo naqdahay maya idaafa iiteeyaan ku dhahay kan iyo xulufadiisa hal xaajiima buuxiyaan lama baryadinku dhammee waay beenaan ii sheegi qaali u soo dig dadkaas inaan dagaal ku soo qaadayo suldaan sidee kaa noqotay ninkaas sanad iyo saacada iyo sikimaba nimankeena ayuu dhameeyey adigana hadda dagaalka haddaad gasho anaga yaa noo haarayo mise xaaraankaas xaaraan ku dhalay khabaan u wada noqonaynaa kulligeen markuu dhalanayo markuu dhimanayo min allaahi ka qoran tahay wax walbaba anigana nasiibkeyga kolley gacanteeda ayuu soo gelayaa dadka masaakiin mihiinta oo xaqooda la galayana inaan badbaadiyo waa hobbigayga waa noo dhammaatay eber waana la xaalufiyey annagaa hoogna waa la bixiyeen kuwan waana bixiyeen inkaanti mandhici weyn ha ku dhacdo kuwan sibda shiirayo war la soo shoobiya aniga ma aqaan aniga ilaa iyo ninka la yidhaahdo surya fanshi gacanteyda dhiiggiisa as soo gaarin degnaan ma helaayaan ku dhahi sheekada iga joojiya show isorac suldaan suuriya waa yimid suldaan suuriya markiis imaaday nimankeena dhan waa gubtay akhay sacbaleti surya mininka haddii isku ishaar bihigan xaqin camal ugu xaaqa suldaan suuriya
isbarashada hanoo dambayso muhiimadda ayaan ka hadlaynaa anaga waddankeena wax walbaa yaalaa laakiinse horumarkiisa dib ayuu u dhacayaa taasna waxaa ugu wacan waddankeena oo ku nool dad fara badan oo daacad aan u shaqaysanayn iyo dad fara badan oo ka soo horjeeda dadka daacad u shaqaysanaya iyo dad fara badan oo kursiga ay ku fadhiyaan ka faa'iidaysanaya si khaldanna u isticmaalaya dad fara badan ayaa jira oo sharciga waxyaabaha diidaya sameeya dadkaas markay magaalada marayaan dil dhac boob iyo waxyaabo lamid a ayay sameeyaan arrintaasna sharciga wax kama qaban karo waayo laaluush ayay siiyaan waardiye ilaa iyo madaxweyne way og yihiin dadkanoo kale oo tuugada magaaladan inay ku nool yihiin laakiinse wax kama qaban karaan igaraa lahada runta in laga gambado qalad weeye mideeda kale qof walba feelkiisa halkan ha keeno baawur ha ku baxo bas ha ku baxo diyaarad ha ku baxo helikobtar ha ku baxo wax igama gelin laakiinse waxaan doonayaa saacad gudaheeda in feelashoo dhan halkan laga keeno waayo qof walba oo jiran ama caloosha xanuunta ama madax xanuun feelkiis anaa furayo ma garateen dhaqso sigbaad adoo daldalmays nool dhalisiyatiyeeli feelashaas dhan kulligood waan finishayaa yaa tallaabadaada koowaad alla taraaraxmi sidaad la wada socotaan hadda ka hor muddo 24 saac ayaan hayay jagada wasiir dowlaha marka waxaa idinka codsanayaa sida daacadda oo anigaan ku hayay idinkuna hawshina inaad ku gudataan waddankeena xasiloonida baahi ayaa loo qabaa dhibaatooyin fara badan ayaa waddankeena ka dhaca dad badan ayaa isdila mararka qaar waxaad arkaysaa dhibaatooyin aad u waaweyn inuu waddankeena ka dhacayo anagana isla markaas aan wax ka qaban karin marka taas in la raaca maaha waa in la raacaa qaladka meeshuu ka yimid waa in la toosiyaa qaladka meeshuu ka yimid marka taas darteed ayaan go'aan ama fikrad fiican u keenay waa sanduuq sharciga laakiin mudan anagu sanduuqan kumaan dhaqmi jirin haa kuma dhaqmi jirin laakiinse hadda wax ka bilaado waan ku dhaqmaynaa waa sharci dadban qof walba oo dacwad qaba ama qof walba oo dhib loo geystay dacwadiisa warqad ayuu ku soo qorayaa kadibna sanduuqan ayuu ku ridayaa sanduuqan waxaa loo baahan luuq walba in la geeyo xaafad walba in la geeyo een dadkiina waxaa idin sheegayaa haddii aad weysaan nal haddii aad weysaan biyo haddii aad aragtaan waddooyinka inuu jajaban yahay waad ka dacwoon kartaan wasiir haddii aad ku aragtaan qalad ama haddii aad aniga khaladii u aragtaan waad igu dacweyn kartaan 24 saac gudaheeda ayaa qofkii khalad gala tallaabo looga qaadayaa dhibkii weynna waxaan ku xalinaynaa ilaa isbuuc maalintaan arko sanduuqan inuu maran yahay waxaan ogaanayaa dowladdeena inay noqotay dowlad caadil oo nadiif ah haye miyuu raacsantiin marka dadweyne yaan laga cabsoon dacwadaas qofkii dacwad qaba bokiskaasoo ku rido siyaasaddeena si khatar ayuu daba taagan yahay taa waxaaba ka daranba meel walbaba sawirkiisa ayaa ku dhegan asiga ayaa la taageersan yahay marka aniga waxaaba iga haysaaba inaan gobolkayga ku noqdo basbaaskiisa iska iibiyo maxaa tiri gobolkaygan ku naqana basbaasaan gada yaa kuu saamaxaya horta basbaas inaad gadid yaa kuu saamaxaya qoofka noogu haya war wax walba oo siyaasadayna ninkaa waa soo fogay war ninkan haddii aanan tallaabo aanan ka qaadin oon asiga xabsiga aanan geyn annagoona geynayaa marka ninkan nin khatara weeyaan inaad yaraysataan maaha gobolkaygan basbaasku gada xal ma noqaysaa xalkeena xal in la keena loo baahan yahay وسلامتين إذن هم بالكم واحد ما مرتنا وقاعد رئيس الوزراء قبضت تلفونات ونفريها واحد سؤالات قبتنا ودين كمان إن والله هالكيك سؤال ليس ما قاعد أقسم وقف سلام رئيس الوزراء طبعا كأخذ مدن وحن دقنا تولد قهري يا عفك وش قاعدت إن إلا هذا نتبنا ومصلى الله محاجر مدن هرتا تولدين واحد كعواد جرتين كورنت الآن هذا سو كورنت اللي دي مسودين إيشك ها مدن mideeda kale biyo la'aan fara badan waad ka caban jirteen ayadana hadda soo biyihii laydinma soo daayay sheeg bal sheeg midaas mideeda kale tariinka muddo 24 saac kadib inuu mar idin yimaado ayaad ka caban jirteen balse amar waxaan ku dhiibay inuu 2 saac kadib idin yimaado balse hadda soo idinma yimaado sheeg bal midaas haa mudane waa idin salaamay mudane tulada shirka wax weyn ayaad u qabatay sidee ku fikirtay adiga aniga horta madaxda dalka ayaan ka mid ahay marka waa laga qurxoon yahay hal tuulo kaliya inaan wax u qabtay su'aasheeda mar haddii aad madax tahay mas'uuliyadda dalka oo dhan ayay ka saaran tahay balse tuulo ama gobol kaliya inaad ka fikirta maaha wasiiru dalaw soo baxay tariiq ku salan haye halis diyaar garay dhaqsada waxa waaye aroos maan qabnaa aniga gobol ayaan u socdaa
waxaana baawrna looma baahno may taliyo in anaga waxaan ku qasbannahay mar walbaba nabadgelyada inaan sugno sidaas darteed aan ku dabaraacina waayahay dhegayso waad maqashaan u malaynaa wax meeshan ka dhacaya haddii aad shicibka wanaag tusi lahayd maanta iyaga ayaa ku dooran lahaa aniga imaadan imaadeen casharka aad wadda horan u akhristay kowdhe martaan ka dhaqaaji waxaad wadda wax kuu suurtagalaya ma aha waad bixi karta waa ku barya abkaa magana saas hadhihin hal mar oo kaliya 5 daqiiqo si qolku wada shirno macnaha waa ku barya higa diidin abkaa macnaha waa kula hadlaa inaan kula hadlaan rabaa walaalkayga waa ku barya abkaa magana higa diidin garab isi oo haddaad ila jirto waa huba inaan guulaysana ciidan fara badan shicibkan aday ku taageersiin wax walbaba waa toosina lacagtii hantida aan aniga weydiiyan ku dhaw kugu faraqa waa kugu wareejaa waa ku barya higa diidin abkaa magana aniga haddaan u baahanahay rednow meeshan waan kugu dili karaa sababtan kuu dili waay maxay tahay mataqaanaa aniga sharafteeda inay hoos u dhacdo inaan diidanahay waxaad rabtaa aniga inaad idisho booskayga tiijaa aad keento war aniga haddaad idisho oo aad adiga booskayga gasho dhib ma laha adigana birito waa lagu dilayaa aniga booskan markii aan soo galaya qof ayaan ka dishtay dilaa kasta dil ayaa u dambeeya middaas ha iloobi oo adiga kaalem waxaad mooddaa siyaasadda shaati cad inta la soo xirtay in layska soo istaago oo markaas madaxtinimada laisku sharaxo wareedha siyaasaddu waxay u baahan tahay aqli fara badan iyo xigmado haddaad i weydiisileed laga yaaba inaan ku ogolaa balse caalankaygaa rabtay inaad hoos u dhigto laakiin dawaajaa caalankiisa waa kor waqti walba wiil weji libaax hawshan inaad qabanayso anigu waan ku jiifataas sidaas darteedan kuugu dhiibaan ku dhahay hawsha tani waadna ka soo baxda magaalkan adaa maamulahaya magaalada jawgeeda hadda maxaa laga dareemayaa ii sheeg adaa ku leh cid kale kaama hor imaan kartaan ku eri cirkaad ku dubaysaa hore u socda igu halle ayaan ku eri aniga waxaan u baahanahay bafintaa oo dhan inaan gacanteeda ku maamulo magaaladan miyaa rabtaa inaad gacanta ku dhigto akhbaartaada magaaladan maahayne waddankao dhan ayaa laga og yahay waa laga dhan yahay magaaladan keliya ma maamulaysid jandigaagar xataa adigaa maamulaya duwaajaa aniga waan fahmi karaa xanaaqaada siyaasadda sideedaba dad cusub haddii ay yimaadaan isbeddelna wuu imaanayaa ninkaas lacagta uu qaatay ballan waaye waa laga soo celinaa waxaas khalad waa mudane madaxweyne idhegayso duwaajaa warbaahinta sida ay sheegtay